halkani waa laanta af Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada barina iminka waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah waa galabnimo khamiis ah bisha Novembarna waa 9 barnaamijka dunida iyo maanta waxa si toos ah uga imaanaya magaalada Hargeysa halkaas oo gabagabo uu marayo ololaha doorashada madaxweynenimada ee Somaliland barnaamijkana gabi ahaan waxa uu ku saabsan yahay dood dhexmaraysa saddexda murashax ee u tartamaya madaxweynenimada ayagoo ka hadli doona qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda sida go'aansho iyo ictiraaf raadinta sii daba dheeraanaya xasaradaha ka aloosan mandiqada ama ha noqdeen qaabka ay ula tacaamuli doonaan gobolada Soomaaliyeed ee jaarka la ah ama khilaafka khaliijka ee saameynta ku yeesha mandiqadan dawlad wadaagga iyo isla xisaabtanka arrimaha ijtimaaciga ah iyo qodobo kale qodobadaas iyo qaar kale ayaan ku gorfayn doonaa doodan oo sidoo kale toos aad uga daawan kartaan Facebookga BBC Somali iyo telefishinada Home Cable iyo SBC hase yeeshee marka hore aan ku hormarno wararka caalamka magaalada London waxa ka soo jeedinaya Cabdinuur Sheekh Maxamed Cabdinuur
cabdinuur aad ayuu u mahadsan yahay warkii dunida ayuu nala socodsiinayay u diyaar garooba markana qaybaha kale ee barnaamijka sidii aanu hore u sheegnay doodan waxa ay dhex maraysaa siyaasiyiinta ka socda saddexda xisbi ee Soomaaliland ee u tartamaya madaxweynenimada kuwaasoo kala ah murashax madaxweyne Faysal Cali Waraabe murashax madaxweyne Muuse Bixi Cabdi oo ka socda xisbiga Kulmiye iyo murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Cirro oo ka socda xisbiga Wadani dhamaantood halkan ayay fadhiyaan marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan idin soo dhaweeyo idinkagana mahad celiyo sida sharafta leh ee aad nooga ogolaateen inaad doodan nagala soo qayb gashaan waa doodii ugu horeysay ee nooceeda ah ee BBC ay abid qabato waxaanan jeclahay inta aynan dooda u guda gelin inaan xoogaa yar xusno aan isxasuusino qaabka ay doodu u socon doonto hanaanka ay doodu u dhici doonto ayaa waxa uu yahay in qaabka su'aalaha uu noqon doono mid waafaqsan hanaankii guddiga doorashooyinka uu dejiyey ee markaasi la xiriiray qaabkii qoratuurka ahaa ama kambeynka aad ku soo gasheen ama doodaha aad uga qayb galayseen ee ah in Faysal uu hadalka marka hore ku hormaro Muusana uu ku xigsado Cabdiraxmaan uu qofka saddexaad noqdo marka murashax kasta waxa uu yeelan doonaa daqiiqad iyo bar in su'aalaha uu kaga jawaabo taa micnaheedu ma aha in aadan naqdin karin ama aadan waxba ka oran karin jawaabta murashaxa kale hase yeeshee waxaa reeban doodu in ay u ekaato in laba murashax ay dhan u badanayaan ama murashax si gaar ah loo bartilmaameedsanayo ama la buuranayo marka intaa waa naga xusuusin doodan u gudagelaynaa iyo eebbe idmo waxaan ku bilaabaynaa in arrinta ku saabsan gooni isu taagga Soomaaliland 1991 ayay arrintan ku dhawaaqday Soomaaliland ilaa iyo iminkana wax ka soo naasacadaaday ma jiraan oo aqoonsi ah oo la hayo inkasta oo hanaan dawladeed uu ka hirgalay iyo kala dambeyn oo iminkaba doorasho ay dhacayso oo dimuqraadiyadna ay meesha ka jirto Faysal ayaan doonayaa haddaba inaan ku hormaro muddo rubuc qarni iminka ka badan ayaa la baadigoobayay in اعتراف لهلا adigu haddii aad madaxtinimada ku guulaysato maxaad doonaysaa inaad samayso si aqoonsi aad u keento bismillaahir rahmaanir waxa weeye horta aqoonsiga Soomaaliland waa sharci adduunka oo dhan sharciga u taala u deji waa uu ogashahay charter AU waa ogashahay ka United Nations waa ogashahay waxa weeye Soomaaliland wax naga dhaxeeya ma jiro leverage leedahay nagu leedahay ma jirto dawlad baan la dagaalanay dawladda Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naga siiyay guushii way ka dhacday meeshii Soomaaliya hadda ma jirto wax Soomaaliya ilaaho been baa loo magacaabo dawlad aan jirin la magacaabo la aqoonsaday marka waan loo hawlgelin magaalada reer Soomaaliland dawladdiis ka dambeeyay uma hawlgelin iyaga isku meereystay waxaan ku kalsoonay insha Allah ta'ala 2019 concept kan sameeyay two state solution ilaaho inaan adduunkana ka iibiyo Soomaaliyana ka iibiyo insha Allah ta'ala on soo afjaro muranka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya in ahaan wax jira ee wax la abuuriya ay tahay oo maanta dawladda aanu haysanaa Soomaaliya dhisan ma jirto iyaga gacanteeda u baahan marka waxaan ku leeyahay arrinta waxa weey dawlad midnimo qaramaan dhis insha Allah ta'ala waxaan kala saarayaa mucaariya muxaafid waxa ilaaban joojinaya wax qof kasta waxaan ka dhigayaa inuu dawladda soo timaado oo dawlad technocrat aqoon leh ayaan sameeynaya oo xuquuqdeeda doonataan doonaya oo ku soo celiya Soomaaliland sharafta ku leeyahay geeska Afrika Soomaaliya dhan ay sharaf ku yeelataan doonaya insha Allah ta'ala ma santahay Faysal aad ayaad u mahadsantahay Muuse Bixi waxaad doonaysaa qaab noocee ayaad doonaysaa in aqoonsi aad u keento bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore kugu raacsanay aqoonsiga Soomaaliland waxa kala soo naasacada doona saacadiin waa hawl socoto wax badan laga qabtay sida loo raadinaya anagu qorshahayagu yahayna waxa weeye laba wadaan raacayna waa ka koobaad waxay noqon u gudbinaa arintayada Afrika waxa ka bilaabanaa igad iyo midowga Afrika tan waxaan u gudbinaynaa caalamka kale waayo waa arrin Afrika marka halkaas aan xoojinaynaa horeba arrintaas waa u jirtay laakiin hadda halkaa xoog baan saaraynaa qodobka labaad waxa weeye waxa bilowday inkastoo mid dhalin wada hadallo u socday Soomaaliya iyo Somaliland wada hadallada waxaanu aasanahay fadhiid ka noqdeen dhinaca Soomaaliya oo aan si hagar la u hawlgelin
waxaa kaloo aanu u aragnaa halkii lagu qabanayay oo teerkay ahayd in ay wax dhexdhexaadin ama facilitation ama waxa le waxay ku kordhisay aanay jirin wadahadalladaas inay hore maraan sidaa darteed waxaanu leenahay arrin kastoo adduunka ka dhacdo wax lagu dhameeya wadahadal marka inaanu wadahadalkaa geyno faga caalami ah dalalka jaarka iyo kuwa xooga weyn iyo caalamkuba dhex yimaadaan oo aanu si wacan u garnaqsanno taana waanu xoojinaynaa waa hagaag waa mahadsan tahay muuse cabdiraxmaan cirro qaab noocey ayaad doonaysaa aqoonsi inaad ku keento somalilan bismi illahi raxmaan raxiim qaabka aanu u howlgelaynaa mid waa gudaha midna waa dibadda gudaha somalilan waxaanu doonaynaa inaanu noqonno dawlad sharciga ku dhaqanta muwaadiniinteedu u siman yihiin xuquuqal insaanka ilaalisa saxaafadda xortaa ilaalisa intaa ka bacdi waxaanu doonaynaa inaannu dawladahaanu jaarka nahay iyo dalalka AU-da iyo IGAD xidhiirka aanu lahayn la kordhiyo wixii tallaabooyin hore loo qaaday ee AU-du qaaday ee ahaa xaqiiqa raadintii arrinta somalilan dib loo soo cusboonaysiiyo waxaanu doonaynaa xidhiirkii aanu la lahayn dalalkaanu saaxiibka nahay in la soo nooleeyo oo hoosu dhac badani ku yimi waxaanu doonaynaa in wixii naga xumaaday iyo sababtii u socon weyday ictiraafka somalilan waxaanu qabnaa in dib loo eego waxaanu qabnaa in somaliland wax badan qabsatay oo lagu aqoonsan karo hase yeeshee beesha caalamku aanay u dhega nuglaanin somalilan waayahay saddexdiinaba ama labadiina dambe muuse iyo cabdiraxmaan inta badan waxaa soo celceliseen beesha caalamka iyo igad iyo laakiin waxaan ogsoonnahay in tobannaankii sana ugu dambeeyey waddamo aan badnayn oo dunida ay kala go'een sida bilmatel in east timor ay ka go'day indonesia south sudan inay ka go'day suudaan laakiin dhammaantood qaabka ay u go'een marka la fiiriyo waxay ahayd qaab ay raalli isaga ahaayeen waddamadii kala go'ayay marka soomaaliya markii teeda aan ka hadlayna iyo somalilan ma jiraa wax qorshe ah faysal aan ku laaban doonaayo bilaabi doonee ma jiraa ilaan adinkay dan isaga kiin xihan tahay inaad meel wada fadhiisataan oo aad ka hadashaan bal inaad kala tagtaan faysal annaga iyo waddamadaas sheegtay isku mid maaha waddamadaas waxa weeye way kala adkaan waayeen waxa la joojiyey dhiigga waa la dhex galay meel dhexa la isku yimi waqti baa la siiyey South Sudan iyo Timor annagu dawladdii waanu ka adkaanay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baan siiyey guusha wax allaah waxay maanta Soomaaliya nagu leedahay leverage amban awood nagu leedahay xoog naguma qaadi karto dhaqaale naguma samayn karto dawladaha wata ee danta gaarka wata ee ixtiraafay ayuunbaa noo dabray oo na daba sida oo magaalada dawlad aan jirin waxa weeye arrintani waxa weeye arrin xaqa waa loo dadgelin waan loo hawlgelin annaga isku habsaanay gudahayaanu hagaajinay insha Allah taala wana imanka khaatuma hadda heshiinay Soomaaliland oo midaysan oo kaligeeda iyo dawlad midaysan oo qaran u sameyn doona insha Allah taala wax iyaga adduunkan weydiisan doona insha Allah taala Soomaaliya wada hadaladeeda iyadaan horta hagaajinayna iyagaan doonayaan u qabano shir u qabano halkan ugu qabano oo dawlad u sameeyno Soomaaliya oo ku jirin kuwan Soomaaliland meesha u guriga doontaan ku jirin oo mid oo kaligooda markaasaanu danta Soomaaliya ka hadli doonaa markaasaanu iyaga oran doona okay annagu waxaan saddex Soomaaliya Djibouti Soomaaliya maxay u haystaan waan isqancin doonaa waxaan jeclahay in qancin doona insha Allah taala lagama kula waan iyaga hagaajiya anoo oday Soomaaliyeed baan ahay waxaan u sharaxanay Soomaaliya dhamo sharaxanay meeshii Soomaaliya baa ka jirta waan geliya insha Allah taala halkan baan isku yeedhiya insha Allah taala waayahay muuse ma arrintan ma kala hadlaysa Soomaaliya mise sida Faysal uu yiri waxba isaga ma keen xirran horta dawladahan aad soo qaaday kala go'ay ixtiraafay labadii dhinac ee sayay ayaa labaduba bad qabeen ama dhinac bad qabay oo kii kala ictiraafay Eritrea iyo Ethiopia oo tii wareeda ayaa ogolaatay Eritrea East Timor dawladda ay ka goday Indonesia ayaa bad qabtay oo fayoobay oo talinaysa arrintii loo tago ogolaatay South Sudan sidoo kale Suudaantii weynayd baa laga go'ay marka iyadoo xaq gashay tan way ka duwantay laba arrimoodba waa marka hore dhinacan dantu naga xiran tahay ee Soomaaliya ah iyagii 20 sano burbur ku jira marka caalamkana iyagii lama tashan karo oo iyagii sababta ka maqantay iyagina waa burbursan yihiin
markaa xaggoodaa taladu ka adkaatay oo waxba la wadaagi kari lahay caalamkuna ilaa iyagiibuu dhisayaa u kolba leeyay bal cid laga hadlaa hortaa ka soo baxdo wada hadal haa waan la hadlaynaa dan baa iskala kala xidhan isma nabcin waa isla dadkeennii taladeena baa isqaban weyday dowladdii aanu dhisanay baa duntay markaa waa in mid waliba sideedii u noqota marka waxa weeye hadalka waa wada hadlaya laakiin waxaanu weli 25 sano waxaanu u xanibanahay dhinacii kale ayaa burbursan oo waxba laga lahay laakiin waa hadal waa in lagu dhameeyaa wax walba waaya hay cabdiraxmaan cidro bismillahi raxmaan raxiim wadahadalka somaliland iyo soomaaliya xukuumadda hadda joogtaa bilowday laakiin shacbigu ku raacsanaa in wadahadalka la bilaabo waxay ila tahay waxaa loo baahan yahay in gogol xaal wanaagsan loo sameeyo wixii wadahadalee dambe waanu qiimayn doonaa wadahadalladii hore iyo sababtay midhay u dhali waayeen arrimaha somalilan waxaanu u qaban doonaa shir qaran oo lagaga hadlayo arrinta ictiraafka marxaladii uu soo maray wadahadalku loo baahan yahay wadahadalka in la sii wado waxaanu qabnaa in wadahadalku uu sii socdo laakiin waxaa loo baahan yahay in gobol xaadh wanaagsan loo sameeyo si uu yeesho midho dhal haddii ilaahay ka dhigo ajendaha somalilan waxa weeye in la helo dal qarana oo somalilan la yidhaahdo oo beesha caalamku ictiraafsan tahay ama laba dowladood oo jaara ah oo walaalo ah oo labaduba aqoonsi haystaan mashkiladaha soomaaliya way jiitameen oo la soconnay iyagana waa u ducaynaynaa in ilaahay mashkiladda ka saaro hadalkaaga waxaan kala dhex baxay in ay jirto rajo ah in adinka iyo soomaaliya aad wada hadashaan wada hadallada ay sii socdaan wadahadalka in la sii wado annagu waxba kama qabno waay laakiin waxaanu doonaynaa qaran somalilan la yidhaahdo inuu wadahadal ka soo baxo oo ictiraafkiisa leh oo siyaanadiisa leh muuse intaanan faysal ku laaban waxaad tiri wadahadalladii fadhiid ayay noqdeen wadda nooceeya ayaa haddii madaxweyne aad noqoto u maraysaa wadahadalladaas in la sii wado kolka marka koowaad waa in dhinaca muqdisho laga helaa dawlad adag oo wax ka guwi karaan oo dadku ogriyihin ma kismaayaan la hadlaa ma baydha baan la hadlaa ma garow baan la hadlaa mise xama mashkiladda caalamku uu leeyahay nimanka wada hadla waa in iyaga la helaa cid horta la doortay ummaddu dooratay go'aan leh kalsoone leh oon hadal la geli karo in la hadlaa waanu ogolleh oo bini aadmu wixii dhex marada hadal ku dhammaysto laba meesha lagu hadlayana waa inay tahay meel lagu negasheed garanayo oo dadka wada hadlay ciidiin dhexayso oo laydiin garanaqayo ee aanay noqonin idinku sheekaysta si turkiga ka dhacday waaya arrintaas halkaas aan kaga gudubno qodobka kale ee aan u gudbaynaa waxa uu yahay arrinta ku saabsan xiisadda ka taagan khaliijka xiisadda waxa ay ku soo faaftay mandiqadan waa aragteenoo soomaaliya dowladdii dhexe mowqif ayay qaadatay inay dhexdhexaad ka noqoto dowladihii kale mowqifyay kala qaateen dhinacyay kala raaceen somalilan oo mandiqadan ka mid ah waxa ay la safatay sacuudiga iyo imaaraadka marka la eego haddaba mushkiladaha ku gadaaman somalilan gaar ahaan midda khaliijka faysal cali waraabe weji nooceeya ayaa doonaysaa inaad u yeesho xiriirka aad la leedihiin waddamada khaliijka ee khilaafka uu dhex yaallo si aad u xaqiijiso in xukuumaddaada aysan lugaha la gelin dagaal jiitamo oo daba dheeraada oo aydan shaqo ku lahayn waa horta mid anagu labanu la geli mayno dagaal jiitama kana midnihin dagaal ka socda khaliijka laakiin anagu markay isqabsadeen walaalaha reer carabtu waxaanu eegnay waddanka annaga danteeda ku jirto soomaaloo dhan danteeda waxay ku jirta imaaraadka markii adduunka oo dhan laynaga xidhay imaaraadka maanta inta baaxbishada inoo joogtaad ogtahay xoolaheenoo dhan waxaan u dirnaa etoobiya bahashii sacuudigaan u dirnaa intaasoo waxaan leenahay intaasoo qof reer somaliland oo ilaa xitaa malik sacuud baan la soo shaqeynaa aan la soo shaqeynaa awooyaasha la soo shaqeeyeen waa waddaanu isku xidhnay dhaqaalaheenu isku xidhan yahay marka anagu waxaan raacnay xulufadaasaan raacnay xoog weyn baan raacnay gadarna kuma xumin laakiin waxaan anagu raacnay waddanka annagaana sida idinkoo kale naguma qasaan taariikhda somaliland eeg annaga dad loo digteed gareeya ma nihin snmto qaawan oo keliya taagan ayaa xitaa diiday berigeena in waddanna uu digteed gareeyo annagu ummad waxaan nahay maskax furan oo weligeedba loo digteed gareen anugu taageerada halkaasaan saarnay haddana gacan naguma leh siyaasaddeeda maanta taagan naguma leh saddexdeeda musharax mawji anuu garan maayo dee dowladda soomaaliya lagu xanta inay meel ku jirto
laakiin annaga imaaraadka sacuudiga midkaayna kuma leha gacan uguma leh laakiin mowqafkaanu qaadayna waa mowqafka labada coalitionka oo danta Soomaaliya ku xidhan tahay danta Soomaaliya dhan ku xidhan tahay xoolaha kaliya haddaad eegtid gaar ma xoolaha ka qaadata way Muuse waxaan u dhawaataa Faysal Sacuudiga iyo waxaan xiriir wanaag oo aqaale leh oo hore taariikhi leh inkastoo aan mid aqoon wada lahayn sidaa darteed markaanu qiimeynay xaaladda xisbi ahaan iyo shicib ahaan aad u darisnay waxaan isla garanay inaanu taageero xulafada ku jiraan Sacuudiga imaaraadka waad qadsantahay Cabdiraxmaan موقف كدون مياد أدينا هيسا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحسبيهان أوصد ضلالك أنا شارك أن هاي خليج كم دي هاي ضلال لما علنهين عرضنا وما هينو سمان الآن منطقة يكون وشهاي أما جغرافيا اللي كتالو وحي شارلت هاي يمن يضلالك سعودية iyo imaaraadka taariikhiyanna yamanna xiriir wanaagsan baa ka dhexeeyay Somaliland oo ka daaweyn ka labada dal kale ka dhexeeyay ana waxaan qabnaa inaan idan ugu jirin geeska guud ahaan in arrimo military oo keeni kara dagaal ay idan ugu jirto guud ahaan mandiqadan wixii ganacsiga iyo horumar annagu xisbi ahaan waanu soo dhaweynaynaa wixii investment ee dalka la gelinayna waanu soo dhaweynaynaa laakiin sharciyan waxaanu doonaynaa inay shuruucda dalkana waafaqsan yihiin heshiisyadiina ay yihiin kuwa transparent ah oo shacbiga iyo baarlamaankuba ay og yihiin intaadan ka bixin waxaa jira imaaraadka inuu dhisanayo saldhig military dekadii berberena waa uu maamulaa taa beddelkeedana Somaliland dhaqaalaha ka soo gala adiga haddii aad ku guulaysato arrimahaas sidee wax isugu xiirinaysaa u daalacnaasiraysaa dantiinii adinkoo fiirinaya iyo masaalixdiinii haddana sidee isugu keeni lahayd in howlahoodana ay u meel maraan adinkana tiinii meel marsataan marka koowaad wixii maalgelina ee Somaliland la gelinayo ee shaqo abuuraya ee horumar keenaya waa soo dhaweynaa kama soo horjeedno sidaanu sheegnayna waxa u baahan yahay dhammaan mashaariicdaas inay yihiin kuwa sharciga waafaqsan oo heshiisyadaasina ay yihiin kuwa transparent oo la arkay xukuumadda wadani hadday dalka timaado way eegaysaa dib u eegaysaa haddii maslaxadda Somaliland ay waafaqsan tahayna way qaasaasi ku qaadanaysaa haddii aanay maslaxadda Somaliland u baahan tahay wax laga bedelana dib eegis ma ku sameeyeen waayahay Muuse ma halkaas wax ka oran lahayd waayahay waxaa jira eedaymo inkastoo aysan idin khuseyn adinka haddana ah in dhaqaale uu ka soo galo Somaliland wadamo saaxiib la ah dhaqaalahaasna uu marka dambe ku ururo dad gaara jeebkood marka si aanay taas u dhicin dawladdaada haddiiba aad guulaysato maxay ka qaban doontaa horta arrin Cabdiraxmaan ka dhawaajiyay baan doonay inaan saxo Cabdiraxmaan wuxuu yidhi heshiisyada lala galay DB World iyo heshiiska saldhigga waa in dadka la hor keenayo transparency oo sharciga la mariyo waxaanu ognahay inuu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ee ansixiyay dhammaan heshiisyada ee shuruucda haddana wuxuu leeyahay haddii waddan qabsado dib baanu eegnaa oo waxba qaldan labada goor ku qalday baan garan horta marka waxa saxa wixii heshiisyo la galay dawlad shisheeye sida uu dhigayo dastuurku in baarlamaanka la mariyo baarlamaanku ogolaado ama uu diido hadduu ogolaadona waa arrin sharci ah taa intaasaan ku dhaafayaa tan kale mid kuma waafaqsani dawladaha aad saaxiibka tihiin wixii faa'iidadeed ka soo gala ama shirkad wadaaga siday DB World ha noqoto oo macaashkeedu yahay ama saldhig la kareenaya ha noqoto faa'iido laga hela cid buu jeebkeeda ku ururaa ereygaasi meesha kuma jiro haddaad inoo soo caddayso adiguna waa ahlan wasahlan dawladna mar walba waa la xantaa haddii uu jirana waa khalad
waa la qabanaya waa la saxaya musuqu halku joogo waa inaan la dagaalanaa musuqu waa aafada dowladaha weliba soo koraya burburisay waanu ku jiraa mar walba uu ku dhex jiraa annagu haddana waa bilowla dagaalanka oo waxaanu sameynaa hay-ad la idhaahdo maamul wanaagga iyadoo odhitkii iyo hay-ad dagaalamaya joogaan haddana waa sii xoojinanaa waa la dagaalamanaa waxaanu aaminsannahay meesha uu musuq ka jiro qaran ka jiri maayo uu ka dugaya marka wixii jirana waa lala dagaalamaya faysal dhinaca waxsidama marinta arrintan hadda uu soo qaaday muuse dowladdaada maxaa u qorshaysan inay wax ka qabato haddiiba aad guulaysato horta waxa weeye su-aashan anay igu fiicantahe laba niba waxay ka tirsan yihiin dowladda hadda jirta midna waa sharci dejintii midna waa xukuumadda ruulin baadhigi weeye iyagu waxba bedeli maayaan runtan kuu sheegayaaye haddii wax ku dar lahay bedel lahaayeen laakiin anu waxa weeye dalkan waan hagaajinaya insha allahu tacaala dadkan midnimadiisna ka shaqaynaya sharafta ku lahaa soomaalida dhexdeeda iyo geeska afrikan ku soconaya insha allahu tacaala musuqmaasuqan aad sheegaysaana part of nolosheedii buu noqday oo waxaanu noqday we live with corruption baanahay waa iska ogolaanay laakiin anagu insha allahu tacaala waan la dagaalamaynaa zero tolerance baan samayn doonaa insha allahu tacaala waxaanu ka baxaynaa kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka dad iimaan leh oo wanaagsan oo ilaahay ka baqaya ayaanu meel kasta u dhiibi doonaa labadan qolo waxa weeye iyagu ay hadday ku jiraan dheeriga ku jiraan waxaa lanagu caayaa biibiina lacag lagama qaadan anigoo ag fadhiistay maalintii la saxiixi xitaa la yidhi lacag buu qaatay oo shaxaadku igu soo batay oo albaabka telefoonka xidhay wax musuqmaasuq halka ka yimid jiro 10 milyan baa keeno 10 milyan waa tii inanta Samson soo bandhigtay sidoo kotorban lacag soo qabatay waa tii tilmaantii dadkiisa oo qancay taa lacagtii marka waxa soo dacaayadaha xusbiga wadanu ka soo horjeeday maalgashi ka soo horjeeday bees ka soo horjeeday ayaa waxa faafiyay wadacaayada marka dalka oo dhan xumeynaysa in xumeyneen wadan in kulmiye xumeynayna ummadda oo dhan xumaysaa weeye db waa baan leenahay wax ma idin saxiixna maxaa noo maalgelin weyn anaga la tabina wala war xaga ka dhacdeen war xaga beeski ka dhacdeen an ilaa haddana wax naga soo gaaray ma jiro waaya u kaga jawaabo marka bismillaahir rahmaanir rahiim wasaldhiga heshiis la keenay ma jirin waraaqaf Soomaali ku qoran baa la keenay in labadan oday la tusay war uma hayo heshiiskaas baarlamaanna lama keenin mudanayaashii soo jeediyey in heshiiska la keenana waa tii feerka iyo laadka lagaga saaray golaha marka haddii muuse la tusay heshiiska anugu ma arag anaa guddoomiye baarlamaanka waa runtii dekedana maalgashigeedu heshiis baa la keenay oo aan originaal ahayn heshiiskii rasmiga ahaa lama keenin waxa la yiri marka la soo saxeexo baa baarlamaanka lagu soo celin doonaa laguma soo celin lahaa hadda su'aal la weydiiyay odayaashu odayga su'aal baa iyaga ku noqnoqday meesha xaqalqalinka markii la kala qaadeen waa joogeen labaduba marka taa heshiiska waxa weydiinaya marka chairmanka baarlamaanka ahayd ee aad guddoominaysay wixii saldhigga heshiiskii la baaskareynayay wixii aad baaskareysay ummadda u sheeg ilaa anagu baan akhriyaada xilka hayee markii saldhigga la baaskareynayay horta anigu ma jaargarayn ciddii jaargaraynaysa waa la garanayaa anna waan ka baxay maalin guddoomiyaha baarlamaanka ma ahayd guddoomiyaha golaha wakiiladaan ahaa guddoomiyaha baarlamaanka saleeban baa ah waayahay aad ayaad u mahadsantihiin jerman magaalada chamber isagu waxa weeye shaqadiisu inuu dadka ku dhawaaqo adduunka jerman ka baxay chamberkiisii waa the history of mataqaanaa speakers adduunka ayuu soo geliyaa maxaa imaka saa sheegay isku tagi mayne laakiin wixii dee saxan sheegina anigu waxaan ka qayb galay bayska ayaan ka qayb galay negotiationkiisii waxaan ku negotiate garaynay heshiiskii uu baarlamaanku baaskareeyey qodobadii ay frameworkaas baanu heshiiska ku galay oon qodob u eegnay intaasoo loo yorbaa joogay wax lanagu xaday ma jiro marx nagu xaday ma jiro waxa weeye caadada dalka waxa weeye haddaan qofkaasi ku jirin arrintaas inuu ceebeeyaa weeye marka waxa weeye anu waxaan u arkaa cabdiraxmaan inuu isku sameeyo contradiction chairman laydi ka soo baxkay oo chair garaynayo chamberkiisii chairmanku inuu neutral noqdaa go'aanka MPyada waa inuu ku dhufta baaqayla dhinaca fadhiyada baarlamaanka iyo doodahooda qodobkii aan ku taagnayn aan kugu soo gabagabayno haye waxay la tahay Faysal heshiis la keenayna heshiis lama keenin waa ku celinaya heshiis lama keenin wixii la keenay waraaq Soomaali ku qoran bay ahayd maxaa ku qoran warada
balaasha gudoomiye cid saxeexdayna may jirin somalilandna ma saxeexin imaaraadkuna ma saxeexin negotiationka waay faysal galayna waay waxay la tahay dee xukuumaddana kama tirsanayn baarlamaankana kama tirsanayn waa mahadsantihiin arrintan ku saabsan imaaraadka iyo saldhigga military iyo khilaafka khaliijka iyo mowqifka aad ka taagan tihiin hal su'aal ayaan rabaa inaan idin weydiiyo waxaad tirahdeen waxaan fiirsanaynaa annaga masaalixdeenna si kooban idinkoo iigu jawaabaya faysalan ka soo bilaabayaa ma la odhan karaa maadaama baashi meel xun oo qaraar ay gaartay waxaad abuuraysaan dadkaad godob u abuuraysaan berri aydnan ka saari karin faysal war waxba waxa Soomaaliya ku sheekaysay baan nahay danka waxa $400 baa la gashanaya dekedeeda oo iska dhimanaysa la nooleynaya adduunka kale uu soo eeganaya intaas oo soo socota farmaajo iyo dawladiisa iyo ciro iyo waxa naga diidanay annagu halka waanu taageersanaynaa waanu hirgelinaa fiiskii hore waa ka dhamaaday la wareegtay tii jirtay kii labaad waxa weeye inay sameysay extensionkii ka saddexaad waa prisoonkii saasay u soconaysaa waanu ku faanaynaa in lacag wadankayga la gashaday dad la aamini kara yahay wadan sharci ku shaqeeya yahay wadan dumarada iyo waan ku faanaynaa kana xun naftawa baan leenahay waayo faysal aad ayaad u mahadsantahay iisoo koob adigana muuse ereyga dadkaad godub geliysaan balay fasir maxaad uga jeedaa masaalixdii waxaad tirahdeen masaalixdeennaan fiirsanaynaa meeshanna wax la isu reebtay ma leh waa la iscuna qabateeyey adduunyada diblomaasiyaddii iyo safaaradihii waa la kala qaatay waddamo kale la isu adeegsaday wax proxy warka la yidhaahdo adinkii dhinac waxaad tirahdeen masaalixdeennaan fiirsanaynaa caalamka oo dhan ha dawladda waliba arrinta khaliijkaan kaa sheegay berri waxaa laga yaabaa inaadan hogaamiye ahaan maanta inaad kambeynka ku gelaysid arrintan maya nin godob ummaddii u samaynaya ma noqonaysaa maya kulama qabo ra'yigaa godob baa la gelaya kulama qabo maxaadan u qabin waxaana kula qabin anuu cid kama duurin waayo cidda isbaanaan dirin haye dagaal lamaanaan gelin adoon gelin horta dhegeyso horta kaas war haygaaga haye kaygana dhegeyso haye waxa weeye waa la isqabtay caalamka waxbaa la isku qabtay waayo duruufo siyaasiya la isku hayaa oo ay hogaaminayaan laba dhinac oo noogna midba ka dambaysa iyo cidda wadda caalamka oo dhamina siyaasadu iskaga hor yimaada qaran waliba isagaa isqiimeeyo dantiisa eega dantaydu waxay ku jirtaa inaanu raacno xulafada sacuudiga iyo imaaraadka ninka odhanaya maxaa dantaada halkaa raacday waan kula coloobayaa hayla coloobo waayo ima taliyo godob aan dadkayga u soo jiiday anuu qadar kuma duulin ismana hayno colaadna uma wado laakiin dantayda halkaan ka dawladda raacayo haddaad gula coloobayso ood godob ku qaadayso aday taas waxaan ku weydiiyey nalama yeeri annaga maya waxaan ku weydiiyey faaraxo waxaad leedahay de kelimaha nagu isticmaalaysa godob iyo waxba kama soo naascadda iyo dee adi qoladaama kuweysha maa ku saareen imanka Soomaaliya kii u weynaa baa jira muqdisho ay samaysatay magaalada Turkiga kaas ma godob baa mise godob laan wey faysal waxaan ku weydiinayaa su'aal kaas ma godob horta iga jawaabo ka Turkiga su'aasha markaan ku weydiinayo ka Turkiga iga jawaab horta Turkiga halkan Hargeysa waa uu joogaa kaas waxa muruusha maxaa ka odhan weyday ma godob baad gashay oo waxa ku leedahay imaaradu ku jira aad tahay ballan qaadiyana aad samaysay de mowqifkaaga ina cadaysid oo waxaan su'aalaha ku weydiinay wax godob leeyahay ma jirto wax way dawlad ka soo boolis bay dawladana way ka qabatay way ogolaatay aan oo mucaarna waan arkay wax dan gudata waa ku taageeray qofkii meel kale looga yeelay isaga jira laakiin this our the interest of all people dadkay waa dantii dadkay aan eegina cidna uga habran mayno hebel wax sayna yeelmayno waayahay doodda halkaas ayay nooga sii socon doontaa weli halkaad nagala socotaan akhyaarta waddanagala xiriirtay waa laanta Soomaaliga ee BBC oo aanu galabtay si toos ah idinkaga soo gudbinayno magaalada Hargeysa waxaana ay dooddu dhex mari doontaa murashaxiinta saddexda ah markaasi u tartamaya madaxweynenimada Soomaaliland Faysal Cali Waraabe Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ciro وهجاج وحن كل عملنا قضب كي كسب سنة لنا مسق ماسق وهداي عن ملك تابعني وح بلن قادين إن هذا حقيقة وانا إنسان إن كستو أرنتاس إدنا وليس هذا سنين لكن وحن جعل إن عن مركن لنا كلا كثير إنه أيضا وجه كلا له Somaliland waxay ka mid tahay meelaha dhalinyarada aadka u badan ay ka tahriibaan ee badaha ku dhinta waxaana ugu wacan ayaa la leeyahay musuqmaasuqii oo keenay in dhalinyaradii shaqo la'aan ay noqdaan markan waxaan ka bilaabayaa Ciro siyaasadaha aad la imaan doontaa maxay yihiin si arrintan aad wax uga qabato guud ahaan
dee waxaa la ogyahay waddamada dunida saddexaad ee somaliland ka mid tahay marka la eego populationka 70% ka badan inay da-yar yihiin oo dhalinyaro yihiin maadaama 70% dhalinyaro yihiin dhaqaalaha dalkuna uu hooseeyo waxaa jirta shaqala-aan badan waxaa kaloo dhalinyaradu aanay lahayn xirfadihii ay ku shaqaysan lahaayeen marka guud ahaan qodobka koowaad waxaan ku talagalkaygu wuxuu yahay in dadka xirfada loo abuuro xirfadda ka sokow laakiin jaamacadaha ee somalilan arday badan ayaa sanad walba ka qalin jabiya xirfadihii meel loo dhig dad kuwii digriiga watay maxaa ugu tala gashay waxaa kaloo noo qorshaysan oo dee iga soo dhex gashay in maalgashi gudaha iyo dibaddaba loo doono mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqada abuura oo ay ka mid yihiin warshaduhu oo ay ka mid yihiin madaaradu ay ka mid yihiin dekeduhu ay ka mid yihiin waddooyinku waxaa noo qorshaysan in sektarada somaliland hodanka ku tahay ay ka mid yihiin xoolaha iyo kalluumaysigu iyo macdantuba la kobciyo si looga abuuro shaqo dhallinyarada waxaa noo qorshaysan barnaamijkayga ku jira iyadoo waxyaabaha la eegayo in la abuuro 5 sannadood ee hore 15,000 oo shaqo oo dhallinyarada loo abuurayo waa barnaamij qurxoon oo kugu soo laaban doonaa su-aashaas meeshaas su-aalan kaa weydiin doonaa muuse biixi arrintan musuq maasuqa iyo dhallinyaradan yaacaysa iyo shaqa la-aanta taagan maxaad doonaysaa inaad ka qabato waa 3 qodob oo kala duwan iskuna jira musuq maasuq waa aafo xukumad ahaan iminka waa bilownay sidii loo dagaalama institution baan u samayn 100% maanaan baabiin waa dagaal bilowa dagaalkaa waa xoojinayna musuqa in loo dagaalamo waa go-aan 2 shaqala-aanta 2 qodob baanu shaqala-aanta ku dhimaynaa marka hore si aad shaqo u abuurto waa dhaqaala hesha dhaqaalihiina dawladda ictiraafsan yahay oo institutionska caalamiga ee ay lacag banka adduunka iyo lacag ka maadabinayn marka waxaanu haynaa fikradda ah lacag nagu filan oonu shaqo ku abuuro dalkaygu haysta sidaad ogtayba caalamka maanta lacagta waxaa haya shacbiga private sector ka haya dawladuhu facilitation bay sameeyaan caalamku ka guuray sidii shuuciyaddii hantiwadaaggii iyo socialistkii ay dawladdu lacagta haysay waxay baabuuraysay marka waxaan u baahannahay haddii ay brafitki lacagta hayaan waa in brafitki horta dee xoolaha waxa la maalaa markaas waxaan loo daajiyo ee caafimaad la siiyo marka private sectorkii ama shirkadii gaarka horta waa in iyagii loo sameeyaa damaanad iyo amni iyo xaaladay ku shaqayn karaan deeta iyadaa lacagtooda ay ku aamini karaan inay ku abuuraan warshado iyo wax lagu shaqeeyo marka tallaabada hore halkay lacagtu taallo private sectorka ah iyo dawladdu waa inay isla gartaan dabeecaddii ay ku maalgelin lahaayeen dalkay shaqo ku abuuri lahaayeen shaqaabarkood kaas ka imanaya ka labaad dawladdu dhallinyarada markay ka baxaan jaamacadaha waxaanu samayn doonaa wixii loo jira shaqo qaran oo lagu soo tababaro waxay arrin ku soo qaataan iyaguna isku bartaan 3 caalamka hore u maroodha waxaynu ka baran asia weliba china india malaysia mid walba dibeg si aad uga baxdo shaqa la-aanta mar qura boodi maysid oo gaari maysid electronicska iyo information technologyga waxaa la bilaabay horta in dadka lagu jeediyo dhulka oo ay la soo baxaan cuntadooda qudradigooda 3 tallaabaan u qaadayna oo noo qoshaysa faysal horta waa hay-addan uu ku celcelinayo muuse uu leeyahay waanu samaynay hay-addaas nin kulmiye ahaa oo saaxiib lahaa inba loo sameeyo oo waxay qabataa ma jirta budgetna waa la siiyaa wax cid la qabtay oo la yidhi waxba musuqmaasuqay weli ma hayno adiga laakiin maxaa ka qabanaya anigu waxaan ka qabanaya waa mida ka horta dadka shaqaalaha ilaa wasiirada waxaan siinay mushaar fiican insha allahu tacaala xaggee ka imaanaya mushaar waxa weeye dalkan waxaan doonayaa waddankan waxaan doonayaa investment la geliyo oo horta dhigna jawi maalgashi mid dibadda iyo gudahaba waxay qorsheeyeen 100 maalmood hore inaan soomaalida Somali business community-ga meel kasta jooga baan halkan shir ugu qabto su-aasha waxay ahayd gawri dhibaatada mashaakilkan corruption-ka iyo corruption-ka waa ka jawaab waxaan dhallinyaradii yaacaan
war dhalinyaradu karooshka waxa ka dhaxaysa shaqalaanta ka yaacaysaa shaqalaanta shaqal abuuraya waxaan ku yidhi waxaan sameeynaa jawi lacag lagu gashadaan sameeynaa waddanka Soomaalida baacmishirigeedo dhan waxaan ku casuumay wax leena Kenya iyo meelaha kale kan gashada waxaan sameeynaa ugu jirta German Somaliland Business Forum baan sameeynaa oo maalgeliyaasha German kan u yeedin hadda insha Allah taala kama Berlin ku qabanay kiisa ku qabanaa waxaan sameeynaa sharci wanaagsan oo lagu maalgashado waxaan sameeynaa hay'adda maalgashiga Somaliland baan sameysannaa oo xafiisyada kala duwan ka joojino taasaasiinaysa waxaan sameeynaa hay'adda la dagaalanka ee monitor gareynaysa shaqada dawladda oo hay'adaha dawladda oo sanadkii report soo saaraysa oo meeshii tira halka waxba ka jira la fayl gareynayo sharci baan ku soo dilnaa dalka waxaanu keenna cadaalad haddii marka shaqada yar cadaalad loo bixinayo waxba ma xumaadeen cadaalad darri dadku yaacaya Faisal halka su'aalan ka weydiiyo arrin inta badan dadka niyad jabisa waxay tahay nepotismka ama nintoosiga waa hadda heshay waa cadaalad daro laga hadlayo inmadii ka soo baxay jaamacadda ayaa kii wasiirro badan lahayna shaqo la siinaya kii aan wasiir lahayna shaqo helin kii aan wasiirba lahayna waxba helin oo wixii yaray soo baxaba la xalaq sameynaya aqoontiisa horta waxa ka horeysa taasaanu baqtiina waxaan doonaa cadaalad siinaayo qofka lagu shaqo geliyo miiridkiisa iyo numberkii ka helay iskuulka iyo aqoontiisa waxaanu sameynaa iskuulada farsamada ayaan 157 aan doonaa inaan ka dhigano iskuulada farsamada ardaydu ay tagaan waxaan nagu soo biiray reer miyiga xooli ka baxeen oo iyagu u baahan in la farsameeyo iyagana crash program soo sameynaa 6 bilood baanu sameynaa oo bartaan si wax loo rinjiyeeyo sida marmarka loo dhigo sida magaalada saayid nijaaradda sida loo kalluumaysto waxaanu sameynaa in ummadda waan kala shaqo geynaa geen hore iyo geen dambe waxaan doonaa dadku shaqeystaan ka dhigin haddii Allah yiraahdo cadaaladana keenaysa cadaaladda maxaa laga heliyaa cadaalad kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka laga heli calayhi salaam kaasaanu keenay insha Allah Cabdiraxmaan bismillaahir rahmaanir rahiim yani waxay la tahay arrinta musuqmaasuqa nidaam baa jira ku saabsan maaliyadda iyo qandaraasyada xukuumadda kulmiye markay timi waxaa jiray ilaa guryo ka badan 1,000 oo dawladdu lahayd guryaha waa la wada iibiyey waxaan u malaynayaa wasaaraddii ay ku jirtay wasaaradda duurista mooyaane cid kaloo qandaraas lagu bixiyey 1,000 iyo dheeraadka kale ma jiro waxaa lahayd hantida dawladdu way iibin kartaa laakiin waa in qandaraas oo tender lasoo bandhigaayo ciddii iibsanaysaba intaasoo guri waxaa laga yaabaa kolba qof guri in laga iibiyey transparent maahayn arrintaasi adiga waxaa qabanaysa hanti badan baa jirta waxay la tahay annagu waxaan nidaamka dee maaliyadda dalka u yaalla waan waafajin doonaa haddii xukuumaddu iibinayso mana jeclin minaanu hanti xukuumaddu hanti dawladdu leedahay markii nidaam uu yimaado ama dawlad ay timaado ragaan waxba haysanin inay ka taajiraan xukuumaddina ka mid yihiin dawladdaada haddii aad guulaysato arrintaas maxay ka qaban doontaa rag hadda suuqa jooga oo waxba haysan oo berri guryo jeexan doona haddii aad guulaysato haddii la arko maxaa samayn doontaa iminka waxaan xisbi ahaan samaynay xisbiga dhexdiisa mareeg ama website la yidhaahdo qof waliba hays caddeeyo waanu jecelnahay shaqaalaha dawladda iyo wasiiradana in mushaara ku filan la siiyo oo lala xisaabtamo waa mahadsan tahay muuse hadala soo waday haye cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi guryaha la iibiyey qandaraas lama marin taasaa dhacday shaqaalaha saasaan ku yidhi waxa qura weydiiyey waxa weeye haye cabdiraxmaan muu ahay nin bannaanka taagan ninka labaad awoodina buu ahaa hadday dawladdu qadantay isagaa qaban lahaa chairmankii baarlamaanka wuxuu ahaa wakiilada oo intuu soo dhigo odhan lahaa waxaasoo qalada la joojiye ma dhicin ma markuu waddan noqdo arkaya muuse taas waa ka soconnay arrinta uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan ee ah qof walba inuu sheego hantida uu leeyahay marka xilka uu qabanayo haddii aad guulaysato ma samayn doontaa nacam waa tala aad u wanaagsan midna waa kugu raacsana haye in anigana dembi iga tahay iyo doqonnimo dadkana dulma ay ku tahay nin maanta suuqa joogo waxbaan intuu dawladda wax ka noqdo inuu ka taajiro dembi cad baan u arka haddaan kusii daayana anna waan la qabaa qalankuna anigu iga sugan wax ka qabto diyaar rabaan waa faysal horta waxa guryaha la iibiyey waa runtiisa guryihii waddanka oo dhan waa la iibiyey ma guryo keliya maaha goor ma loo talay dhageyso goor ma loo talaabay waxay ku dadkii iibiyeen horta ee u baday intuu baarlamaanka yidhi intaasoo guryaha jiro waanu iibinaa warqadii madaxweynuhu ka akhriyey madaxweyne Siiraanyo 2014kii baarlamaanku ahaa
oo ninkii waxa ka shaqeynaa imika wuxuu la joogaa cabdiraxmaan buu la joogaa ninkii guryaha badankooda iibiya cali maraxna yar buu soo gaadhay waxa weeye waxay ku fileen inuu guddoomiyaha baarlamaanku uu soo abuuro biil soo sameeyo soo curiyo mashruuc sharci oo odhanaya guryaha dawladda ee shacbiga iyo dawladdu lahaan jirtay lama iibin karo oo resolutionkaad soo baxo oo baarlamaanku u footeeyo uu dawladda account wuxuu waa check and balance checkii baan maqnaa marka cabdiraxmaan inuu cawdo maahe way ku wada jiraan kulmiye cabdiraxmaan ilaa iyo beri dhaweyta saaxiib bay ahaayeen extensionka way ku heshiis bay ahaayeen dalka in la iibiyo guryaha heshiis bay ahaayeen in la koriyo guurta heshiis bay ku ahaayeen waxba inaan isku keen falfalaadeen inuu cabdiraxmaan ka dhigin muuse keligiye waxaa samaysnay isaga la joogta maanta intii kale isaga la joogtaa anaga waxa hagaajinayna change-ka anaga keenna change waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadday arrimo badan aa sheegtay oo aa wax uga qabanayso shaqo la'aanta weliba waxaa ka mid ah in xoolihii dhinacoodii wax badan aad ka qabato 15 kun oo shaqaan abuuraya ayaa tiri wadadee rabtaa inaan marto waan sheegay marka hore dadka in xirfad loo abuuro laba in kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqooyinka abuura maalgashi dibadeedii mid gudaba loo sameeyo ay warshaduhu ka mid yihiin wadaaradu ka mid yihiin wadooyinku ka mid yihiin in khayraad badan baa Soomaaliland ku jira oo ka mid tahay baddu haddii sektorka la koriyo wax leeyahay shaqooyin fara badan baa dhalinyarada looga abuuri karaa xooluhu waa la mid macdanta waa la mid waxaan u qorshaysan insha Allah qaabkii dee loo baadhayay macdanta shidaal ka mid yihiin in wax laga bedelo waxaan ku kalsoonahay haddii dawladda wadana timaado in shidaalku soo bixi doono 2019 وهاجا هذا يا دوما تنتين سؤال كلا أيان روانا نجد بنو أو عن مالير كتاب إنه هرنا عن أصول دافني فيصل أيان روانا كبلا وقلب عن وقت كنا كفائدة إنه سوق وقابله فيصل قبلنا سومالي جار كاتهين هذا الله كل والله يا حرير نوعية يدوني سائناد لسه ما يستطيع حكومة جعنت كدكتو ورانو هرت سومالي ونومت إذا كانت صوص على سومالي بدنا بصوص عرتين واحد بدنا إلى متر طلقوا على سومالي كدر سمي أنا سومالي واحد نسكوه سنة مترتو حدوده ديسبيوت ماله أو أنا سومالي سكوه سنة مدحويني هوري كان منا سوري كان أوضا ولاتان حرير كي أنا ليس أنا هو نشعل إنه سواب الصومالي عد كسوا توبي أو سومالي هم حتى حرير وين طلع لنا لكن واحد نديدنا أنتوا ريال يرميل فريستو إنه إلى هاد طلبنا هو كده سومالي عندي الصومالي بدنا هرجلسان BBC دون ووضع استحاد صوص أرتام ويدل اسمودان ويدل نجاش يكتان يتم أوقاي أنا وهدي الله يراو وانا BBC إدنا ما وروا بومبونستان وحنا نكاس نوتشو وما نسكو احترام لا حتى نوت ما دام من دونين نكاس يعني احترام وبومبونستان وواحد كدكتين institution سومالي لو بابيا كدكتين أيها كوي شوغان نيروبي كوي حمر شوغان وأنا نهاي تنا إذا كبومبونية سوم أنا وسوما كهذا الفيصل كهذا أنا وإذا أنا سايسن متى سومالي اسمه هيسنو وايه دوبنا الله حد لمينو أنا دوبنا كلا هذا وما تصنت موسى وحردورنا حرير كان قد حياة أنا جي سوماليا يقول لي إنه هذا من آدي ونسن أو لابتنو أو حسنا فصنو هذا باع مشترتاي هذا أقوان تاي دور على وين اسمعنا نعم سومالي ما نبغى سومالي وحوي دنتين بس قومي ولا بقولي لا بقرن أو ولا لا أو حسترة أو سوء أو نبردون لهاتو وإحنا عايش شيء وحولا بدنا وقفنا وحيد الماضي والماضي الواتر وحنا بقى نقول أصبرون تا وحنا نسوي هنا ورث بالله قرن لسه كي سوي بيقول كي صار استعان نقول ولا تنوى كنا ورن بدنا نقول شارك هاي مدورن كرت إلى بس كذا كذي واي وانا مربو ورا فلان طا شارك يقول له واي مو يعني وما تصنت عبد الرحمن دهان وضبط شاركة waxaan doonaynaa deris wanaag inaan kula noolaano ama Djibouti ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto ama kuwa badda noo dhaxaysa ha noqoto Soomaali himiladaydu waxa weeye inaan dhiso qaran Somaliland la yiraahdo oo nabad kula noolaada dhammaan deriskiisa
wuxuu kaga duwan yahay soomaaliya waddamada kaleanu jariska nahayna ma jirto waa dal aanu deris nahay colaadna uma hayno dhibna uma hayno laakiin waxaanu doonaynaa inaannu xaqiijinno inaad somaliland noqoto qaran madax bannaan oo dunida ka mid ah haddii alla ka dhigo waa mahadsantihiin faysalan ka soo bilaabi doonaa arrimaha qaarkood waa isku diidantihiin qaarna waa isku raacsantihiin waxaa tiri faysalow dawlad waxaan dhisi doonaa loo dhan yahay oo wadaag ah haddaanan khaldanayn sidee doonaysaa haddii aad guulaysato in asxaabta kale ee aad ka guulaysatay aad u wada macaamishaan oo aad ugu gacanhaatiso waxa weeye anagu marka bisha 10keeda u dambaysa haddii la yidhaaho kambeynkii waa berito wixii beri laga bilaabo waxaanu dad reer Soomaaliya dadka u siman baan nahay xirfad nagama dhexeeyo tartan nagama dhexeeyo dawladda dhisi doona insha Allah ta'ala technocrats bay noqon doontaa wasiiradii hore inuu ku jiri maayaan ragga waxa dad cusub oo noo hawdi garanaya ayaan dhisi doona insha Allah ta'ala oo ku abtirsan saddex xusbiba oo kooban baan dhisi doona insha Allah ta'ala oo waxaan doonaynaa dalkan inaanu kicino oo sharaftu ku lahaa I want to Somaliland great again aan ka dagan doonaya sida 60kii ahaan jirtay ee East Africa caanka ka ahayd ee Soomaaliya dhexdeeda caan ka ahayd ayaan Soomaaliya insha Allah ta'ala soo celin sharafteeda xisbiyada kale waxaanu la macaamili doonaa si wanaagsan sida sharcigu ogol yahay saaxiibtinimada ogoshahay danta Soomaaliland ku jirto inaanu arrimaha qaranka u midoono ixtiraam iyo qadarin iyo la tashi waayo waa xisaab qaran oo tartanay haddii aan ka helo waxaan sii doonaa ixtiraam badan iyo watashi badan iyago laga waaymayo ta dawladda dee xisbi baa guulaysta xisbigu barnaamij buu leeyahy markaa xisbiga kale barnaamij ka duwan buu leeyahy marka haddii qof xisbigaa kale uu dan moodo inuu xisbigiisa ka baxo oo barnaamijka xisbiga raacayo kulmiye way furan tahay laakiin xisbi kalena ka qayb geli maayo waayo laba barnaamij aan kala wadanaa waayahay waa mahadsantahay cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم أديدي وطني قرن كوجوليستو دولة وذاك أنا ودي سمينه دولة ككوابن حسبي وطني أما حكومة ككوابن حسبي وطني أنا ودي سدونا لبدا حسبية كله سيد دستور كتلمام أيو وحنوا قنصنا أحزاب قرن ومضن احترام كوده ومعارضة هو تكون شيء أو كلنا ما كان لكن فيصل وحوي وحكتوس أنا ما كان يسبدل الدوني هنا مرن كا معارضة محافظ كل بوضك كقبصة أو كل يجون أو رسالة أو تدور كيا يودي أنا واحد دولنا تاس خلطنا معها عيبنا معها وعيب وأنا خسر وموقف كسير وأنا خسرنا يو waxaan rabaa inaan hal su'aal kale idin weydiiyo waan midaan ku soo gabagabeyn lahayn annagoo waqtigana dhowrayna guddiga doorashada ilaa iyo iminka hawsha uu soo waday sidee u aragtaan faysal hadda ammaanan yihiin ilaahayna waa mahadnaqaya subxaana wa tacaala inuu nabad noogu dhammaato beritaan noo hadhay kaambeenka beritaan insha allahu tacaala iyaguna si fiican bay u mari doonaan waanu hambalyanaynaa guddiga doorashooyinka waxaanu jecelnay qof kastoo reer Somaliland inuu noqdo guddoomiye iyo guddiga doorashooyinka uu bahasha ilaaliyo oo caadifad qabiil iska ilaaliyo uu booliis noqdo waxaan amaanayaa ciidamada ammaanka ee kuwa xuduudda jooga iyo kuwa booliiska waan amaanayaa waxaan leenahay tana goolkaas tacaala aynu si fiican u wadaalino si nabadgelyo ilaahay subxaanahu wa tacaala haynagu dhaco wala amaanaya guddidaasi aad iyo aad buu amaanaya ku kalsoonahay waa hagaag muuse horta faysal qodob ku diidanayo كانوا نقول نقضي إليه واحد وانا أنا مرة معارض بحافظ قريان صدق حسبوك هتشاور مركز سوق كان مهل أمي ولا برنامج قارة هيستو سيدا جوديس هاي وسع عنيسة حزبي لا أي برنامج قالوا دورتي قف كلام دورة مركز حزبي جوال الدولة برنامج كي حزبي كيس كنيسة حزبي كفيصل كايمر أيوانو كبحة كورات مركز وبرنامج كده سوقرا لكن أنا وقرر ما أقل جاو فيصل صدق حسب سكوا راقية تا كوميشن كا aad iyo aad baan u bogaadinayaa si wacan bay u shaqeeyeen waanu ku kalsoonahay waanu u ducaynaynaa inay hawshaa ku guulaystaan saa imika wadaan waana bogaadinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la qabaa in odayaasha iga horreeyey in shaqadu komishanku ay qabteen shaqo wanaagsan tahay
oo maanta aynu joogno inay doorashadiina soo gaadhsiiyeen insha allahu waxaan rajaynayaa dhammaystirkeedana inay si wanaagsan u dhammaystiraan waxaan rajaynayaa dhammaan somalilan in arrintaas ay ku guulaysato si nabada su-aasha ugu dambaysa waxay tahay doorashadan dhici doonta 13 bishan ee isniinta ah natiijadeeda faysal haddii aad guulaysato iyo haddii lagaa guulaysto ma oggolaanaysaa anigu dee hore aan u oggolaaday tanna waan oggolaanayaa qoladan aan weligood oggolaana xadhigii isku dabi lahayn baan soo soohaya insha allahu tacaala koley way naxayaa dhacninka may baranay ya waxaan leeyahay isdeldela haddaa dhacdeen baan leeyahay waayahay muuse doorashada natiijadeeda sida sharcigaa u soo baxda ee commissionku soo saaraanay maxkamadduba waana hoggaansamayaan cabdiraxmaan natiijada doorashada ee si wanaagsan u dhacda si sharciyan ku soo baxda waa aqbalayna si wanaagsan iyo si sharciya xoogaa meeshaas ma moodaa in lug ay ku laaban tahay trump baa saa yidhi beri moogta mid cadaalada wahagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkan dooda ah ee aad nagala soo qayb gasheen ah barnaamijkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee b b c ay laanteeda afka soomaaligu qabato akhyaarta wada nagala xiriirtay barnaamijka waxaa sidii aad la socoteen ka qaybgelayay murashaxiinta tartanka madaxweynenimada ee somalilan ee dhici doona 13 bisha November oo ah maalinta isniinta ee soo socota murashax madaxweyne Faysal Cali Waraabe oo ka tirsan xisbiga UCID murashax madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye iyo murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo isna ka tirsan xisbiga Wadani waadin mahad celinaya waqtigiina qaaliga ah ee aad halkan noogu timaadeen maadaama weli ololihiina uu socdo waxaa kale oo aad si toos ah ugala socoteen facebookga iyo tv-yada home cable iyo tv-ga SBC waxaan jecelnahay barnaamijka inaan intaa kusoo gabagabayno waxaan u mahad celinayaa akhyaartii b b c da ee barnaamijkan gacanta weyn ka geystay gaar ahaan soo saaraha barnaamijkan axmed saciid cige iyo mawliid xaaji cabdi oo wadajir barnaamijka u soo saaray iyo dhammaanba intii soo abaabushay istuudiyayaasha ee london iyo nairobi barnaamijkii intaa ayuu ku dhan yahay dib waxaan u kulmi doonaa haddii uu eebbe idmo caawa 9 haddiise uu idin seegay barnaamijkan waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan bbcsomali.com ama waxaad sidoo kale dib aad uga daawan kartaan isla facebookga waxa kale oo aad sidoo kalena aad fikradihiina aad ku reebi kartaan facebookga iyo twitterka waxaan idin leenahay akhyaarta hawada nagala xiriirtay barnaamijkiina waa naga intaa dib waxaan u kulmi doonaa caawa 9 inta ka horeysana sidaa iyo nabadgelyo